markasiyiinta mulxidiinta weligood taas way wateen ilaa qarnigii 20aad laga soo gaaro oo ka soo baxay caalimkii Belgiumka ahaa George Lemaitre oo soo saaray aragtidan ee hadda culimada cosmologiga badankooda wada qaateen oo almost xaqiiqo oo kala noqotay oo ah Big Bang Theory qaraxii weynaa ee dhacay qaraxii weynaa dhacay muxuu ahaa marka qaraxaas ayuu adduunyada ku bilaabatay يعني الدنيا waxay ahayd ku leeyahay atom yar wax qarxay marka dadka waxa laga qarx marka la maqlo wax weyn oo qarxayso ma aha atom ayaa qarxay atomka intuu la egyahay farta marka hada taagtid fartaada ma jeeda waxay leedahay dherer iyo balac soo ma aha dherer iyo balac ay leedahay atomkaas intuu la egyahay wuxuu la egyahay tin hadii la soo qaado miis kala saaro dherkeeda ma aha balaceeda waxa dabooli kara 300,000 oo atom tintaas yar balaceeda dherkeeda ma aha balaceeda waxa dabooli kara 300,000 oo atom 300,000 atom mid kamid ah weeyaan adduunyada ee qarxay su'aasha isweydiinta la marka waxay tahay atomkaas hore ma u jiri jiray hadduu horey u jiri jiray la yiraahdo meesha waxaa imaanaysa aaw marka qaanuunkii Max Planck qaanuunka Max Planck wuxuu ku leeyahay termometerka qabowga iyo kuleelka shay walba wuxuu u soo hoobtaa meesha uu ka maqan yahay yani مثلا gacantaada waxa gelisay talaajada aniga gacanteeda waxaan geliyay foornada markaan isalaano waxaad ugu leedahay gacantaada way kulushahay sababta kuleelka gacanteeda wuxuu soo gudbayaa gacantaadii anigana waxaan ku leeyahay sababta gacantaada way qabooban tahay anigana qabowgaaga dareemaya qabowga gacantaada wuxuu soo gudbayaa gacanteedii marka shay walba meesha uu ka maqan yahay ayuu soo gudbaa xoogaa hadaan ishayno labadeena isku noqonaynaa isku weather isku mid aan noqonaynaa adigana qabow ma dareemaysid ana kuleel ma dareemay yani sababta wixii isdhaxgalay halay wada noqonayaan okay marka atomkaas hadduu hore u jiray mar hore waxaa dili lahaa oo ku dhiman lahaa oo tamawut alxaraariya ku dhici lahaa oo ah meesha oo xuduudda aan lahayn ee caalamkan ka baxsan qabowgeeda noolo walbo ama atom ha noqdo ama bini aadam ama xayawaan ha noqdo qabowga uu adkeysan karo ku noolaan karo waxa waa -272 kan ugu adkeysi badan 273 hadii gaaro wax noolaan kara ma jiro wax dhaqaaqi karana ma jiro hadda dhulka ugu hooseeya Pluto cid ku noolaan karta ma leh waa -283 marka Max Planck si u gudbay qaanuunkaas u gudbay atomka sababta atomku wuxuu u qarxay kuleel daraadiis uu kululaaday uu qarxay hadduu kululaa ee meeshaasna uu joogay maxaa dili lahaa qabowga ka awood badnaa soo ma aha yaa ilaaliye marka atomkaas ee kuleelkiisa ku ilaaliyay awoodda ilaalisay yani waxay kamid tahay maanta su'aalaha qaarkood aan weydiin doono qolyaha sheegto inay mulxidiin yihiin ay aaminsan ilaah inuusan jirin adduunkan kaligiis inuu iskaanay ilaah ma jira yiraahdeen kaligiis adduunyadan iskaanay qaar badan way dhageystaan darsigeeda I know qaarkooda hadhow in jawaabteeda noqon doonto aflagaado iyo dacaayada iyo waxa la mid ah kaan waxayaan yani nin carooday laga badi aniga ma aflagaadeynay mulxidiinta mana aynay laakiin su'aalo cilmi ayaan weydiinaya waan u baahanahay jawaab cilmiyeysan in laga jawaabo marka haday yiraahdeen qaraxaas oo adduunyada ku dhalatay waxaan leeyahay marka qaraxaas see ugu baxay qaanuunkii ahaa Max Planck oo ah inuu kulaan qabowgii uu ka badbaado oo si noolaado marka macnaha waxay ahayd atomkaas ma jirin ee markaas yimid weeyaan soo ma aha hadduu jir lahaa qabowgaas dili lahaa xagu ka yimid yaa sakeena marka awoodday keentay kaligiisa ku yimid atomkaas awooda keentay soo ma aha awooddaas marka ku tilmaama adinka waxaa doontiin anaga awooddaas ilaahan ku tilmaamna hadday tiraad ilaahaas ma jiro laakiin awooddaas kaligeeda iska timid oo qaraxday okay atomka markuu qarxay markiiba wuxuu noqday dunidan aan u jeedno wuxuu bilaabay markiiba inuu iswaasiciyo inuu noqdo
dunisaan u nidaamsan badaheeda wabiyadeeda cirkeeda dhulkeeda kulli xisaab iyo miqyaas ku socon ku bilaaban talayuf liifa yani shabaq oo kale nidaamsan oo ma aragtay mid ku xadgudbeenin inuu noqdo ma jira shay isnidaaminaya isagoon la nidaaminin saasha mulxidiinta weydiinaya ka mid tahay ma jira shay keligiis isnidaaminaya isagoon la nidaaminin sababta qarax suu yiri Fred Hoyle qaraxa wuxuu noo cadeeyay fawda yani maanta gurigan uu qarxay ma nidaamsanaan kara haddii bamba ku qarxay ilaahay nama qarxiye wixii dhagxantii way kala daadanayaan soo ma aha laakiin wuu qarxay markiina wuu isnidaamiyey mid mulxid hadda laakiin alxamdulillah soo muslim ayaan lagu wiig kor camal aan sheekaysanayna su-aasha aan weydiiyo waxay jiraan ma jiraan iri nidaam asagoon la nidaaminin markaasuu yiri yani yaa ku yiri dunidan way nidaamsan tahay nidaam wax la yiraahdo maba jiro ugu yiri akhi waxaan ku dhahay nidaam haduusan jiri lahayn aqoon ma jiri lahayn nidaamka aqoonta iskuma xirno ugu yiri hadda waxa laga inuu live ka daawanayo isaga marka waxaan ku eeray akhi xurufaha A B T C D haddii aad yani midmad soo jartid warqada korta waa soo jartay waa wada firdhisay way soo daateen hadal la akhrin kara ma ka soo baxaya maya mar walba hadii loo daadimo soo baxaya maya laakiin haddana B ayaa ku xijisay D ayaa ku xijisay U L K A D I R ku xijisay maxaa ku soo baxay Abdul Qadir ku soo baxay sababta cilmigaas aad ku gaartay wixii aan nidaamsanaadeen soo ma aha nidaam haduusan jirin marka cilmi ma jiri lahayn xurufaha saas loo isku nidaaminin aqoon ma jiri lahayn marka su'aasha meesha iimaanaysa waxay tahay dunidan markay saa u qaraxday see iskugu nidaamisay nidaamkaasna xagu ka yimid iyagana su'aal loo baahan inay ka jawaabaan weeyaan hadiina nabi maxamed calayhi salaatu wassalaam uusan rasuul ahaan lahayn suu ku ogaaday dunidan inay ahayd wax isku dhagan oo kala qarxay ila suuratul anbiya ilaahay wuxuu ku leeyahay awalam yara alladina kafaru miyaysan arkeen kuwa gaaloobay anna as-samaawaati wal ard kaanata ratqan fafataqnaahuma samaawaadkii dhulku wax isku dhaganay ahaayeen atamkaas yaray ahaayeen waan kala fajinay nabi maxamed suu ku ogaaday haduusan rasuul ilaahay ahayn ilaan waagaas wili cilmigan ma soo bixin 1927kii waa markuu soo baxay aragtidan Big Bang Theory ka hor ma jirin horena quraanku u sheegay waa kala fajinay markii kala foqday dhulkii marka muxuu bilaabay inuu si balaarto inuu si socdo dhulka marka si balaaradkiisa ilaa xadkee si gaara haddii ma aragtay dhulka kubad oo kale ay tahay oo dhexda dhibic aad istaajisid oo tiraahdo hal geesahan aada dhinacaan ha noqoto ama dhinacaan ama meesha doonta ha noqoto speedkaaga ama dheeraadkaagana uu yahay speedka ay ku socoto iftiinka qoraxda daqiiqadii sakankii meeqoo socda 300,000 kilometer ayuu socdaa sakankii speedka qoraxda sakankii ilbiriqsiga 300,000 kilometer weeyaan hadduu geeskan ka bilaabo gees kale ilaa uu ka gaarayo imisay ka qaadanaysaa 13 bilyan sano iyo 700 oo kun 13 bilyan sano iyo 700 kun ayuu gees gaaraa kala barki weeyaan cumriga nolosha adduunkana ima soo jiraa dunidan intaasay jirtaa 13 bilyan sano 700 sano oo kun ka hor ayuu infijaarkan dhacay يعني انت الدنيا جرت الدنيا سي واسع نقونيسا سي سocota gees walba ka sii socota marka waxyaabaha culimadaas isku khilaafeen iyo rijaal diinka waxay ahayd bible-ka waxa ku qoran dunida inay degan tahay si balaaranaynin oo markaskii runta iyada ay tahay qoraxdana iyada inay dunida ku dul wareegsato laakiin dunida aysan dhaqaaqin Alexander Friedman isagana wuxuu soo saaray aragtida ahayd dunida inay si waasic noqonayso inay si balaaranayso hatta Stephen Hawking kii maal dhow geeriyoonay fiisiyaagi weyna hadalada uu yiri waxa kamid ahaa qarnigii 20aad horumarka ugu weyn cilmiga gaar wuxuu ahaa inuu noo soo saaray dunida inay si balaaranayso inay si socoto sahaday tahay nabi maxamed suu ku ogaaday
إلهي القرآن كحكي سورة القاف والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون أنا قاعد سيب بلارينو ينويلي إلهي القرآن كشاي قرآن كان مركز هذا الكي إلهي أوصل هنا نبي محمد سكو قاعد إن الدنيا سيب بلارنيس بلاركس ويلي اسمه سيسوعنايا مركز حسابيان يعني ستيفن واينبرغ وحليه بلاركس سيب بلارك حساب أهان حد أيوكو إجيه حد كاس مركو جارو وحب يلعبنيسا الدنيا إنه صايرات إلا أي كسو جارتو أتم كي كبلاوتي إلا أي كسو جارتو أتم كي كبلاوتي سؤال ماشي إيماني سو كلا وركو حيتها ملحدين تويدينها النبي محمد سوكو أوغاد أصل سورة الأنبياء إلى حكوليه يوم نطوي السماء كطي سجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين يعني كما بدأنا أول خلق خلق بلاو سان أو بلاو أن كسر علينا إلهي سبحانه وتعالى هو الشيء سوكو قاعد النبي محمد الرسول أهين إن الدنيا سان كسر لابن دونت عتم كأنه كسر لابن دونت وعدا علينا إلهي نبلن أكو خاضي مركا ساد رادد يعني الإلهي سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون سماوات كي لولك أبوري دودا أي كون خلق بني آدم كي لا أبوري سهدبا مركا كون كان أن كن نول نهي وحو نقضي عالم والبين ولخدي سكو خدلا قار إني يرهدان كون كان وكون حسابته يقان وحساب تمام سوكو حساب تمام مثلا دونيدان هذا أنا أكون نول نهاي وحي سميسي وح لغو مقعاو وقتي كان 24 hours سامعها محوكو سميسي وريقان أي سمينيسو أرنتاس مركا عالم كي روشكا كهدلي هيوج روس وحليه هي وقتي ووح عصب وهرو جري جري إلا أن دوني وريق سنة ساديسن جرين وقتي ما جرين سامعها وقتي ووح عصب وهرو جري جرين meesha waxa iga cad inay jirto marka awood waqtiga ka horeysay ee waqtiga abuurtay awood way marka awood ilaahay samaa awood waqtiga ka horeysay ee waqtiga abuurtay ilaa waqtiga hore ma jiri jirin wax la abuuray weeyaan gadaal ka yimid marka soo kale Arno Benzias wuxuu ku leeyahay cilmiga falaga cilmigan oo markaan waxaan ka hadlayay mesela dhulka yani qiyaasta ay ku socoto waa qiyaas xisaabeed مثلا دول كان أنا عن هذا كنا لناهي السجى قرحة وحاول حيسة سجاشن إلا بليون أو ميل يسدد بقول تدواتن كون كيلومتر أنا قرحة أنت صانع حيسة هدول كمركة حاجير كدرس الكر هذا كلالك قرحة وحو خلجنا يا بيه بده يعلش وبيده يردن أنا قلنا ما وده جوانينا هدول كحير كر هذا حساب سوكو مساعدة مركة هادو هاس أسود دقو وحي يردن عيالاشي مع البيضة كل وحي دول كوسس كجير فروزن ودن خنايا وهذا بيرفو وعيد أنا كان ولا بيرفوين ولا دمانينا مركة قياس تاس سو حساب معها هو حساب وريغان وريغ سنة 24 hours هادو إسبيد كيس وريغ وحيال أم كدر صدق بديه ويدي وحنا نقص فرماين الدنيا waxay noqonaysaa barkad lagu noolaan karo lagu wada dhimanaa wareega haduu hakado wixii dhan wada barafo waayaan waa la wada dhiman qiyaastaas soo xisaab ma aha ha soo qaanuun u degsan ma aha dhulki qaanuunka marka u degsana goormuu bilowday qaanuunkaas su'aal isweydiin leh weeyaan suurtagal ma aha qof caaqil inuu yiraahdo maanta maxkamadan dhisaya محكمة يودسي dadka ay u yimaadaan dacweeyaan qaanuun ku xukumana ma hayo maxaa ku xukumin lahayd qofkaas soo doqonnimo soo ma aha laabud si aad maxkamadu u dhisid horto inuu qaanuunku degsanaado soo ma aha qaanuunka marka wuxuu ka horeeyaa dhismihiisa soo ma aha sidaa daraaddeed marka noloshan waxaa ka horeeyay qaanuunkeedii dunidan ay ku ogaatay inay meeshaas ku hakato qaanuunkaas marka yaa dejiyay ilaahay soo ma aha awood dejisay yaase ka dhigay qaanuun shaqeynaya isticmaal ka shaqeysiiyay
ilaahay sama awoodna u leh qaanuunkaas markuu doono inuu baabi'iyo ilaan qaanuun degsan wuxuu u baahan wax ka shaqaysiiyo maxkamadaad dhistay buug qaanuuna u keentay cidna ma joogto suu ku shaqaynaa qaanuunkii laabudda inay jirto awood ka shaqaysiinayso marka waan ku dheeraaday arno wuxuu leeyahay marka Benzias cilmigan falaga wuxuu noo hogaaminayaa xisaabaad oo la yaab leh koonkan dunidan ay ka bilaabatay iyadoon jirin ma jirin adduunyadan fiiri gaaladii qiranaysa ilaahna wuxuu yiri awalam yara alladina kafaru miyaysan kuwii gaaloobay haddana kuwa soo saaray qaraxan big bang theory gaalay ahaayeen muslimiin ma ahayn ilaahna quraanku ku sheegay gaalada miyaysan arkaynin adduunka samaawaadka dhulka wax isku dhaganay ahaayeen marka wuxuu leeyahay koonkan ka bilowday shay la'aan man alladhi kaaha kana yamliku kull hadhihi almaqayis qiyaastaas cabirkan yaa iska lahaa oo la yaab kale mudhilka ah yaa iska lahaa blueprint yani khitadii ka horeysay ila engineerka markuu guri dhisaayo horta wuxuu dejinayaa soo blueprint oo qoray architect si maaragtay loo kala dhisi lahaa kulli khita degsaneedo kale adduunyo iskama imaanin khitadaas markii yaa soo qof walba caalami ma ogolaan kara adduunyadan aqli ma laha adduunyadan aqli ay ku dhisan tahay aqligaas xaguu ka yimid وسؤال إيجانا ملحدين أتالو لبا هذا الأيام جعلها إنان كختمه مد ويري تشارلز داروين ملاحدة أبوه الصوماء يكون أبتر سدان نيك خارج أصل الأنواع بوجيها وحتى وعن أجنى صومالي أنا خار ملحدين مسوي كيسي والبا بركدكتان فيسبوك سي أمو جيان أبوه إنه يا تشارلز داروين صوت ملحدين وقصة شعبحي هذا كار waxaan idin kaga sheekay warqadii uu diri jiray saaxiibkiisa Abraham Graham oo lahaa inaan ahaado qofan Ilaahay rumaysneen waa anigoo aqligeyga suicide ku sameeyay aqligeyga intixaar aan ku sameeyay aqligeygan dilay yani hadii aan aqli leh waa inaan rumeeyo Ilaahay inaan jiro kitaabkiisa asal anwaac markuu qoray May 22 saaxiibkiisa asal garay warqad u qoray هذا كان يسوق قدبنا تشارلز داروين ويلكيس عرضك فرانسيس داروين يعني خرالدي أبي سخري هذا المركز حدا جيستان ملحدين داروين كأبتر سنة يوحد داروين كهذلي وحوليها إن عقلي جيجا يقضي بالمستحيل وحو إيش جاي صورة قال إنسان أهين تصور هذا الكون الهائل إن نصور الدون كان ساوين المعجب الله يابك له بما في ذلك الإنسان وحياه لا يابك لنا كم تاه بني آدم كان كل حنال ذي قابلية بني آدم كانوا أود له على تقدير مصالحه إنه خرشي مصلحة دي سوحي وجرته نتيجة إن إرادة كون كاسو على أنها صدفة عمياء كدس إن دولة ما إساقط على توي الدنيا كلي قادة إسكانتي أو ضرورة لازمة ضرورة لازمة إسكاد على إيه أهد من أجل هذا ساد رادد أجدوني صاحبك سوشا واحد دريما يا مضطرا إن أنكو خصبانهاي إلى النظر إلى بارو أنك فكره إلى العلة الأولى علة دي أوه ريسي باش وحاجة روح لهم عاو علة هي معلول علة وحوان ماشي أصل كشيء كي يمد الشيء يمد يعني أنا علة ده وحن كنت لامنا إلهي إنه يا سما وحي يمدنا وحي لا أبوري معلول كيوان مركي علة دي أوه ريسي على أنها يعني وحن دريما يوهر أنكو خصبانها علة دي أوه ريسي أبوري أوه ري دونيدان أبوري إني على أنها تملك إني حنبارسنتها عقلا ذكيا عقلي إن درجرد يعني حكمة ديوان إلهي حكيم كأها يشابه بمعنى ما عقلي كإنسان ودو وأكسد عقلي بني آدم كوكال أنا أفكره أود فكرته أدون كان دجسي وبهذا ساد رادد أستحق وحن أود إليه أن أقلم أن أدعى إن ليقو يرى مؤلها من إلهي رميسا هذا الكاس ييري تشارلز داروين أبيه ملحدين تشارلز داروين سنة كدب بوجس مركو قروحه قرتي إنه يجرى إلهي سبحانه وتعالى أدون كان أبوري